madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Engineer Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa maanta waxa uu dhagax dhigay laba wado oo laami ah oo dawladda hoose ee Boorama ay ka hirgelinayso gudaha magaaladan Boorama. madashan madaxweyne ku-xigeenka ku dhagax dhigay labadan wado waxa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka beeraha, wasiirka howlaha guud iyo guryeenta, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare, maamulka heer gobol iyo heer degmo, iyo saraakiisha amniga ee gobolkan iyo degmada Boorama. madashan waxa ugu horeen ka hadlay maayarka magaalada Boorama Cabdiraxmaan Shidabile, wuxuuna si qoto dheer u faahfaahiyay mashaariicdan labada wado lagaga hirgelinayo gudaha magaaladan Boorama. wadadan dhagax dhigeeda oo ah 3 kiiloomitir oo soo bilaabmaysa wadada Camuud ay soo wareegayso 3 kiiloomitir halkana waxa ka bilaabmi doona oo kale wadada laamiga ah wada kiiloomitir oo wadada kale ku xidho oo ay dhagax dhigi doono, laakiin waxaan kugu soo dhaweynaynaa wadadan oo ay ku bixi doonto $380,000. waxaanu maanta halkan farxad noo ah oo kulankaagii inaan uga faa'iidaysano inaad dhagaxa noo dhigto wada 1 kiiloomitir oo isku xidhaysa wadadii hore, wadada halkaa ka muuqata wadada dibadda u baxaysa iyo ta magaalada galaysa halka iskaga imanayaan kiiloomitirkii isku xidhayay inaad dhagaxa noo dhigto. wadadan waxaa ku bixi doona $60,000 ayaa ku bixi doona, waana laami dawladda hoose Booramana way fulin doontaa iyo shacabka dhinacyada ay ka marto. wadadani waxay ka mid tahay shirkii Djibouti ayaa waxa soo ballan qaadnay 3 kiiloomitir baa la soo ballan qaaday, 2 kiiloomitir Mareykanka ay anaga bixinay, kiiloomitirka kalena idinku bixiya. marka kiiloomitirkan waa kii inaga la saaray furaha u ahaa in 2 kiiloomitir kale ay Mareykanku bixiyaan. sidoo kale gudoomiyaha gobolkan Awdal Axmed Xaddi Sidci ayaa isaguna wafdigan madaxweyne ku-xigeenka uu hogaaminayo ugu sheekeeyay sida ay howlahan dhismaha wadooyinka ugu socdaan magaaladan Boorama. waxa way halkan wadadaas 1 kiiloomitir ayaan doonaynaa in dhagaxa noo dhigto oo noo bismilayso maxay ahayd mashruucii tiska ayay ka mid tahay iyo dawladda hoose iyo shacabka. wasiirka howlaha guud iyo guryeenta Professor Ismaaciil Muumin Aaro isna madashan ka hadlay ayaa bulshada Boorama iyo maamulkoodaba ku amaanay howlaha waxqabadka dhinaca wadooyinka ee socda. aad meeyarka iyo gobolsooraha ay ugu mahadsan yihiin dadaalka ay gobolka iyo degmada ay ugu jiraan dhinaca horumarka wadooyinku. waxaan annagu haddaan hawlihii guudnahay waxa weeye waa wadnaha qaranka biyaha dhiigga sidaa u shubo wadooyinku dhaqaalaha marka sidaas daraaddeed dhulda aan isku xidhnayn yaa dhaqaalihii baa kala xidhan. waxaan ku boorinaynaa aad iyo aad meeyarada dalka oo dhan gaar ahaan meeyarka Boorama iyo gobolka wadooyinka ay baryahan dambe aad ugu dadaaleen. waxaan leenahay walaalaha sii wada waad mahadsantihiin. madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Engineer Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo kadib dhagax dhiga labadan wado ee laga dhisayo Boorama hadallo kooban jeediyay ayaa bulshada magaaladan Boorama ku dhaqan ugu baaqay inay wax walba ka horumariyaan horumarka isla markaana iska kaashadaan howlaha horumarka ee socda. runtii aad iyo aad baan ka mahadcelinaynaa hawlaha ay diyaargarowdeen inaad bilicdii magaalada iyo wadooyinkii isku socodka fududeynaya inaad maanta aad u diyaargarowdeen. مدينة جنون هرتي عبد فلسطين طهرة وعاء 1 كيلومتر يخطر كيلومتر هيد هذه بفرحة هذه فرحة نوقتها مالتا يعني نجح حدقنا 3 كيلومتر كم إذا مشروع على JBL جيجا ويدرويه ولا يخلو مكان السماء على طول كان الله السماء سلام ما يكون شيء أذكر قريب كشان وأنت استيجا يدو كل إلهين هذا يدخل أنت لا يبقى كل ستار يصير وتقول جيتار ويرتو هذه أبان كله هذا بدوينها في بورما وعند كل فينا يا وظلنا السومال مانتا ترتب باكس ولا ترتب هرمك لو ترتميه ترتب لو ترتميه قبل لو ترتميه ترتب لو ترتميه ما كان إسكاش جاي من نمر ولا ودين قبلنا إن قيبتين هرمك كل قطعة ما يكون فينا يا كب حضان كتير ذا يورك حبك الجيرين kadib dhagax dhigan ayuu madaxweyne ku-xigeenka Somaliland iyo wafdigiisa u anbabaxeen magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland, waxaana sii sagootiyay maamulka gobolka Awdal iyo kan degmada Boorama iyo waxgaradkii salaadiinta goboladan. Cabdifataax Axmed, magaalada Boorama.